dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa heshiis ku gaaray magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya. Heshiiskaas oo dhigaya in si wada jir ah labada dowladood ay ula dagaalamaan ururka Al-Shabaab iyo in la isku furo xuduudda labada dowladood ee hadda xiran. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo la hadlay warbaahinta waxa uu faahfaahin ka bixiyay nuxurka heshiiskaas, wuxuuna sheegay in sida uu qorsho ahaaba heshiiskan ay labada dowladood ay wada saxiixeen uu dhigayo sida wasiirka uu sheegay in la isku furi doono xuduudda iyo in labada dowladood iska kaashan doonaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. iyo waxa uu kale uu sheegay in wada shaqeynta labada dowladood ay bilaaban doonto, wuxuuna meesha ka saaray dhismaha darbiga Kenya ee la hadlayay inay ka dhisayso xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. dad ka kooban oo 25 tiradoodu ay la eg tahay iyo dhigooda Kenyaanka ah ayaa ku kulmayay Nairobi oo ka wada xaajoonayay ka wada sheekaysanayay sidii xiriirka qaybihiisa kala duwan loo xoojin lahaa, deeqaha waxbarasho kala duwan ee Kenya Soomaaliya u fidiso haday noqoto iskaashiga amni iyo la dagaalanka nimanka dhibta badan oo dadka qarxiya, iyo haday noqoto xagga maxaa la yiraahdaa xuduudaha sufraantooda ganacsiga sufraantiisa kuwaas waxaas oo dhan baa laga wada hadlay. socdaalkayaga maanta marka wuxuu soo gabagabeynayay soo gunaanadayay wada hadalladaas guusha ku dhammaaday. waxaanu dooranay ama dowladda Kenya noo doortay si caalamka iyo dadweynaha labada dalba loo tuso in xiriirka aad u xoogsaday inaanu magaalada Mandera la yiraahdo oo magaalo Kenya ku taala laakiin ay dadka Soomaaliyeed degan yihiin in ay maxaa la yiraahdaa aanu nimaadno si aan u muujino kalsoonida labada dal iyo labada dad u dhaxaysa. marka symbolically ama calaamad ahaan macno gaar ah ayay u leedahay iskaashiga, waxay tusaale u tahay ama dhinaca kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa qasriga madaxtooyada magaalada Nairobi kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta, iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. kulankan oo ahaa mid qaatay ku dhawaad 2 saacadood ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo waliba madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ahaa mid ay kali ku ahaayeen, iyadana labada dhinacba xubnihii la socday banaanka looga saaray kulanka. ila wareedyo ayaa sheegaya in kulanka gaarka ah madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo ra-iisul wasaare Kheyre looga hadlayay arrimo kala duwan oo labada dowladood u dhaxeeya. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu soo dhigay qoraal uu ku sheegayo inuu ku faraxsan yahay inuu arko Soomaaliya oo ku socota meel wanaagsan dhaqaale ahaan, bulsho ahaan iyo xiriirka ay la leedahay caalamka. waxa uu sheegay in tani ay cadeynayso in ay miro dhalayso cadaaladda waa wada shaqeynta dowladda Kenya iyo waliba Soomaaliya, iyo in Soomaaliya dib u soo celisay xasiloonidii iyo nabadda, isla markaana ay labada dowladood si wada jir ah uga shaqeyn doonaan la dagaalanka waxay reer galbeedka ugu yeeraan argagixisada. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa dhankiisa sheegay in madaxweynaha Kenya ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal, la dagaalanka argagixisada iyo sidii ay labada dowladoodba kaga shaqeyn lahaayeen nabadda gobolka. hase yeeshee Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa ka dhaxaysa dano badan, waxaana labada dalba hadda ka dhaxaya muran la xiriira biyaha badda oo ay dacwadiisuna markaan ay hortaalo maxkamadda caalamiga